kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad joogto iyo si walba aad inoo daawanaysaan waqti waliba ay idin tahay waxaan idin leenahay waqti wanaagsan haddii aad nagu cusub tahay fadlan like saar page-keena si aad nooga mid noqoto mahadsanid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo badanaya falalka lagula kacayo dadka isugu jira caruurta yaryar haweenka qaangaarka ah iyo dumarka da'da ah falalka ugu badan ayaa lagula kacaa caruurta iyo haweenka maanta xaafad ka mid ah Muqdisho waxaa lagu qabtay qof dumar ah taas oo dadka deegaanku ay sheegeen in ay soo xaday wiil aad u yar kaas oo la sheegay in ujeedkeedu ahaa in ay la baxsato wiilka yar si ay ugu iibsato kuwa la sheegay in ay yihiin dhigmiirato una shaqeeya hay'ado ajnabi ah kuwaas oo fadhiyo iyo xarumo ku leh Muqdisho xilliga ay isku dayga sameeynayay haweeneydan ayaa la sheegay in ay jireen kuwa ku wehlinayay afduubida wiilka yar barse la sheegay in ay baxsadeen ugu dambeeyna gacanta lagu dhigay haweeneydii wiilka afduuban rabtay waxaa durbaba isugu soo baxay xaafadda ay ka dhacday arintan dad aad u fara badan kuwaas oo soo buux dhaafiyay halka ay wax ka jireen isku day aan la sameynay mid ka mid ah goobjoogayaasha goobta ku sugan ayaan ii suurtagelin balse waxa uu ii xaqiijiyay in wiilka yari uu nabad qabo laguna hayo xaafad ka mid ah suuq boocle oo ah halka ay wax ka dhaceen dadka qaar oo ku taliyay in haweeneydan hawsha wada la dilo ayaa is hor istaag lagu sameeyay waxaana la isla gartay in lagu wareejiyo laamaha amniga degmada Wadajir wali ma jiro mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka hadlay arrimahan ku soo kordhay magaalada Muqdisho oo xarun u ah dawladda federaalka Soomaaliya in ku dhow 50 afduub ayaa Muqdisho ka dhacay maalmihii u dambeeyay mana jirto ififaalo muujinaya in looga hortagayo dadkan maalin cad afduubka u geysanaya haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed dhankooda waalidiinta ayaa muujinaya cabsi iyo walwal xoogan maadaama ay soo korortay afduubka loo geysanayo caruurta mida ah waalidiinta oo aan la xiriirnay ayaa ii sheegay inay ka dhowdahay in ay ka joojiyaan caruurtooda dugsiyada quraanka iyo iskuulada kuwa oo aan looga maarmin barashadooda ugu dambeyntii shacabka reer Muqdisho ayaa u muuqda kuwa wajahaya xaalad adag oo u baahan in meel looga wada jeesto kuwa aanan ka naxayn caruurta yar iyo haweenka Soomaaliyeed kuwa oo u baahan garab qabasho iyo u hiilo Soomaalinimo oo ku maasantiin daawashadiina fadlan share gareey muuqaalka si uu u gaaro walaalo Soomaaliyeed oo aan ku baraarugsanayn xaaladdan hadda soo cusboonaatay